لا يا جودها ورياشة صوماليات وسلامتين مد حتى ما أنت وحال حسايا ما أنت حرية الصحافة الدونك أو مالين أي تهاي إن لوينيو lagu soo bandhigay dhibaatooyinka wariyaasha loo geysto horumarada iyo guulaha ay ka gaaraan habtabinta waxyaabaha ku saabsan horumarada dalkooda dhibaatooyinka jira iyo waxyaabaha la midka sanadkan runtii waxa leeyahay marka la fiiriyo meedii hore ilaa ay meedaan suxufiyiinta Soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan ay la kulmayaan hadii ahaan lahayd handadaad hadii ahaan lahayd xarig hadii ahaan lahayd in xogta si wanaagsan ay u helin saxaafadda Soomaaliya waxay isku bedelaysaa in lagu shubto oo qof kasta mas'uul ah mikrofonkii la hordhigaa wuxuu raba ku sheego hadii wax laga weydiiyana uu diido micnaha saxaafaddu sidaas maahan saxaafaddu waa dabagal hubin iyo in dadka xog hubsan loo soo gudbiyo marka mas'uuliyiinta wadanka maamulayso saxaafadda waa xor dastuurka cutubkiisa labaad xuquuqda muwaadinku ka hadlaaya xuriyatul qowlka hadalku ka hadlaaya qofna lagu ma caburin karo fikirkiisa iyo afkaartiisa marka saxaafadda Soomaaliyeed si ay u gudato shaqooyinkooda waxay u baahan tahay inay hesho xurriyad ku baari kasto wax kasto ay shaki ka qabto sida ay maxkamaduhu u baaraan waxyaabaha qaar musuqmaasuqa waxba laga baari karin sheekooyinka kale waxba laga baari karin marka waxaan leeyahay saxaafadda waa indhaha bulshada oo wariye la'aantooda ma dhici lahaan in warbaahinada laga hadlo marka waxaan leeyahay wariyaasha hal xog dhooro hal loo fududeeyo inay xogaha helaan hal loo fududeeyo in akhbaarta sida saxda ah u soo gudbiyaan wariyaashana ha noqdaan kuwa iyagana mar walba u hoggaansama sharciga xogaha ay qorayaan ee noqdaan xogo xaqiiqda ku saleysan qofna aysan aflagaadeyn aysan ku faanin wariynimadooda dawladana waxaan ka codsanaynaa in xurriyadda hadalka iyo xaq dhowrka suxufiyiinta ee ka dhigta kaalinta koowaad maadaama saxaafadda ay tahay awoodda afraad ee dunida marka qaarna ay noqoto awoodda koowaad